horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino waryaada bal warrama maanta xaaladdu xaggee maraysaa war xaaladda mayba maro hayte nabad in nololaadan jameeli berelika teegi lahaya geega bulukeetili dhiko hay baydhow arooda aniga aan idiin warramo baydhaba waa lagu kala baxay banaanbaxna waa lagu dhigi waayey fakatac inta layidhaa bardaala laga tuuri banaanbixi afkii jooqday gabay warnimayo horta bardaala mooshinka laga keenay yaa lagu ridayaa mar walba mooshinaa jire murun yaaqayla maan rabna yaahu war cabdulla daan inta iska dayso mursal baa gabyoo yidhi run waa laga xishoodaaye madaxtooye nimankaa xukuma aan ka cararaynay beledkoo dhan bay maamulaan waana la arkaaye xitaa ayraboorkii tagnay oo hawl la qaban waaye ma dadkaan habaarnaa sharcigii laga dawaareeye mise waan isdhiibnaa rag waa kala adkaadaaye si aan yeelo maaqaan caqligu way rafanayaae mooshinkaa raggii keenayoo waygu qaladeene kuwii lacagta doondoonayo waydan eersadaye filimkaad jilayseen ninkii daawadaana haye xildhibaanadii ila talshow beenta naga daaye xildhibaanadii nala talshow beenta naga muqdisho dhammaan mooshin dhammaan guddoomiye dhammaan wasiiro dhammaan xildhibaano dhammaan murunkan iyo buuqan waa nagu wareeriseene markoole managa yaraysiino wargabaga mursaloo ninkaan akhrinayay waxaa iiga baxay kii madaxweynuhu yidhi hadda kahor in run ahaa wuxuu yidhi kalkii hore kursiga kuma iman kaara iyo xoog keligistalis dad cuna iyo ma ahi ruux kawaanla'a karti iyo dadaal biirayoo la isku kooleeyey kulan lagu tartamay baan anigu kaalintaa galay kuwii iga kireeyoo daraad kuuska iga qaatay kunturaadda nimankaan galnoon dhabu karaameeyey oon anigu koolkooliyaa kaartadii rugay kuma kaco kalkaygoon dhammaan wixii ay keenaan war ra'iisul wasaaraha markii qadarka kooyi sidii socdii ra'iisul baarlamaanka mursala dalag iritanka eri waana aramika wada hadleen waana ku wada heshiiyeen reed mayka aalay khadar horta boorso faaruq ee malka sheenad isagna fafaniinkaas indeeray man falag walaalayaal qadad bahad noo dhiiba may salaad warkaaga waxaan ku xasuusanaya gabagaagii ahaa dawladda la fade dad araba la seede dooda la fure dollar ala sheene dad karama la siiyaa horta nimayahow dawlad dhaqan lagu yaqaanaa jira ha saxnaado ha saqaldanaade dawladu waa tii wax dirqisa waxna diidda dhafoorkaanna waxaa noo yeelay inaan kala adkaa weynay geeddaan in la kala adkaado maha waa ku jirtaa baydhabo waa lagu kala adkaaday hoolka doorashadu ay ka dhacaysana waa la diyaarsha dibna loo dhigi maayo marka salaad waxaan kula tali lahay war kale inuu inyiis ka dhaafiyo ou yidhaaho waldaneeyow dawlaliinbahanaaye warheedha waxaan ayaantaan maqlayey madax badan oo koonfur galbeed ka soo jeedda oo codsanaya doorashada in dib loo dhigo maxaa diidaya marka in dib loo dhigo ileen asbuuc kasta arbaca waa ku jirtaaye arba'a ma dhammaadasanti imrigaana jira laakiin dawladdan arba'ey arbaa damba ino madallakadhika diidi reer koonfur galbeed waldaneeyaw dawli'an baahangnahoo era jiraan arba'ey may artay waldaneeyaw lafta gareenga ambaahanay reed maryare waa teeganta lafta gareen madawiina isku era warnimayada musharax maxbuus robow xabsiga dhexdiisa ayuu ku heesay waxa uu yidhi diinleeya xabsiga baabuur dareeraw makoraw doon marahaw anna badaaki dibaalade diinleeya xabsiga aseyd sheekh axmed midoobe gaarisuu tegey wuxuu la kulmi odayaal dhaqmeed xildhibaanno oo ay isaga isku beel yihiin oo reer kenya ah wuxuu yidhi waxaan idinka codsanayaa dagaalka farmaajo iga soo wajahan inaad iga garab siisaan war faaraha maclan dagaalkii la galay waray midoobe lankada sheegaso ahmed dhuhle ani la taliye firig baydhooyinka baxsada wayti malka basida doono warkaygoo dhammaanay dheh war guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi wuxuu yidhi waa soo dhowaynayaa wadahadalka siyaasadeed ee madaxda dhexdooda wuxuu ku daray wax
waxaan kula talinayaa buu yidhi oo ku dhiirigelinayaa in la dhammeeyo khilaafka. aryaadhaha madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oday walax badan og waayo geeska afrikana xog ogaal u ah. wuxuu yidhi isbeddelka iyo dabaysha ka socota geeska afrika ha leeska fiirsho. warkana wuxuu ku soo dhammeeya waa baahanahay bakhti looma cuno. mugga ismaaciil waa xog ogaale warkiisa in hoos loo fiirshaan ku tali lahaay. war madaxweynaha Eritrea oo toddobaad ka hor naga tegey shalow imaaraadka ka degey. marka waxaan idin su'aalayaa maxal buu raadinayaa masaxanteenu u gudbinayaa. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo hadduu maanta yiraahdo Soomaaliland waa aqoonsanay hagoodo dadka ku banaan baxayo yiriyo laga yeeli ma. Muuse Biixi hadduu yiraahdo Soomaaliland ku biirnana dadkiisa isagana ku banaan baxaya. marka waxa uu yiri hadalkan haddaan la dhaafayn doc kale laga soo galo. warnamada dastuurka Soomaaliland waxaa ku qoran gooni istaaga Soomaaliland waa muqaddas. dastuurka Soomaaliyana waxaa ku qoran midnimada Soomaaliya waa muqaddas. marka labada muqaddasoon meesha laga saarin wada hadal kasto la sameeyaa mira dhali maayo. war shirka Jabuuti ka dhacay waxaa ka qayb galay qalbi dhagax madax Soomaaliya ka tirsan madaxa u salaaxeen oo raalli ah u dhaheen ma adoona oo adoogiyaa dhinta mugga madaxa loo salaaxayo qaladka ewer laga galay lagama xalliyo. dalba dhagax laangeliley afartin isyeedsay in binaan bahani hoobla hadii may muqdisho kooyo ay nin raalli gareeyo waa isnaftiis. war muqdisho hadduu imaan waayo baydhabana tegi maayo bilaasha isku daalinaysa. war wasaaradda amniga waxay dalka ka ceyrida hay-adda cilmi baarista ee San Research. war tababariyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho muluqdiisa badatay shaqadina oo laga ceyriyay. war madaxweynihii Puntland Cabdiweli Gaas wuxuu yiri kuwa aniga ila tartamaya iyo dawladda ay jilaafaynaysa labadaba dhagu dhigi maayo. warayaasha dhaqanka galmudug waxay yiraahdeen dekada Hobyo in loo dhiso waa soo dhaweynaynaa haddii laga dhabeeyana mooshin dawladda looga horjeedo waligeen ma taageerino. waa adala lamba meelaba kunta. war saraakiishii galmudug ee madaxweyne xaafis ku wacay saddex ka mid ah biraay ku taagnaayeen lugahoodina hore u tageen. war ma haysiin Soomaaliya dawladda ayay noqotay maantana Kenya Airways ayaa airportka aad ka shaqo bilaabaysa. war dawladda hortii oo diyaariyal Kenya ku koox jaadnin China ka degi jireen airportka. aryaadaha madaxweynaha Ciraaq baasaboor Ingiriis oo hore u heestay markii la doortay uu yiri waxaan u celiya dalkii lahay baasaboorkan mugga madaxda kuma daydaan oo dareen ha geli waaye. wareeda madaxweynihii la doortay maxaa Cabdullaahi Farmaajo sida wax u socdaan ma ogyahay. war madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir Syria tagay الله بحب القلم يوم القلم ماذا قناح ما قاديه. waryaada waa qaldantiina meeshnu kala wada waxaas war mihine waryaa wadanka iyo dadka wax u dana sheega ama aamuso. xamar weyne doofaara lagu dilaa la yiri. waryaa tiidiis raaska le doofaarka marwiin laga dili doofaar dilay ay meel dhaqaaleynaya ma taaba kartaa war wal dilay lamada wal dilay qaax haydin dishay.